halkan waxaan u joognaa inaan ogaano Ajay Krishna barnaamijkiisa ayaan halkan hadda ku soo dhaweynaa si oo arintaas wax inooga faahfaahiyo Ajay soo dhaw mudanayaal iyo marweyn bishii hore ayaan waxaan tagay shirkadda loo yaqaan Aircall shirkadaas markaan galay simikar ayaan rabay inaan ka soo iibsado kadibna darbigeedan waxaan ku arkay maqaal yar meesha ku qoran oo dhahaysa telefoonkaaga haddii aad rabto inaad si free u isticmaasho marka hore waa inaad hakaysaa kadibna si free ayaad u isticmaali kartaa telefoonkaaga muddo kadib ayaan waxaan is weydiiyey message markaan telefoonkayga ka diro oo aan telefoon kale aan u diraayo waddada uu maraayo waxaan go'aansaday inaan ka qayb galo imtixaankaas oo aan rabay inaan ku ogaado message-ka waxaan la ogaaday sidoo message telefoonka ugu baxo telefoonka kalena ugu dhaco message-ka habka u baxaya idin tuso marka meeshani waa antenada dad u jeedan qofkan wuxuu rabo message inuu diro kadib message-ka markuu meeshan ka baxo BTS uu aada BTS uu ka baxaa MCN uu aada kadibna wuxuu aadaa MCC kadibna wuxuu aadaa MCN ugu dambeyntiina antenada kale uu aada sidaas ayuu mobile kalena message-ka ugu gaaraa laakiin aniga waxaan sameeyay marka message-ka wadadaas maray ayaan waxaan u qaatay wax loo yaqaan hacking-kii ayaan waxaan dhaxdhigay marka message-kii aan diray iyo antenada kale uu gaaray kadibna message-ka aniga waa hacking gareey meesha ayaan ku qabtay waxaan sameeyay marka message-ka markaan hacking gareey message fake ayaan sameeyay kadibna antenada aan ku celiyay message-kaasna qof u dhacay wuxuu noqonaa marka message fake barnaamijkana sidaas ayaan ku ogaaday kadibna arintaas waxaan ula hortagay shirkadda Aircall markaan u geeyay su'aalo fara badan ayay i weydiiyeen waxay dhaheen barnaamijkan sidee ku ogaatay anigana waxaan dhahay barnaamijkan wadooyin dheer ayaan u maray waxaan ogaaday marka barnaamijkan inuu yahay barnaamij dambi ah oo qofka markuu hacking gareeyo waxyaalo fara badan ay ka lumayaan marka si hackingkaas iyo qofka hacking gareynaya loo aqabtiro waxaan sameeyay wax loo yaqaan fireblock bal fiir hadda telefoonkayga ayaan message ka diraya kadibna message-kaas hacking ayaa lagu sameynaa intuu hacking ku dul wareeganaya message-kaas uu baxaya ugu dambeynta intuusan antenada gaarinba fireblock ayaa dib u celinaya message-ka meesha ku burburaa marka barnaamijkan markaan shirkadda Aircall u soo bandhigay aad bay ugu farxeen waxay dhaheen marka barnaamijkan aad u fiican adiga telefoonkaagana free ayaan kaaga dhigin waxbarashada markaad soo dhamaysan shirkaddan ayaad ka shaqaynaysaa marka hore waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Aircall oo barnaamijkan iga ogolaatay tada kale waxaa mahadsan college-keena maadaama barnaamijkan uu soo saaray idinkana waan idin